Assalaamu calaykum kusoo dhawaab channelka oo mahad dhammaanteen waan jecelahay inaan duubno waqtiga farxadda badan ee nolosheena laakiin maanta waxaan fiirinaynaa dad gacantooda ku duubeen waqtigii noloshooda ugu xumaa go'aankoodu wuxuu ahaa inay galaan duulimaad gaaban laakiin nasiib xuma wax yar ka bacdi macallinkii ayaa dareemay inuusan xiranin suunkii ammaanka wuxuuna la kulmay 150 sakan ee adduunkiisa ugu xumaa intay duulimaadkooda ku guda jireen macallinka waxaa la soo daristay cabsidii ugu weyneed wuxuuna isku dayayay inuusan marnaba sii daanin si uusan meesha ugu dhimanin laakiin nasiib wanaag waxay ku degteen meel oo beer camal ah wayna badbaadeen ninkan waxaa la dhahaa John asoo maalin maalmaha ka mid ah badda South Africa ku jira ayuu wuxuu la kulmay boqorka malalayga ama libaax badeed ama shaarbu kolbasa u taqaanid John wuxuu gacanta ku haystay birtan aad u jeedid marka oo libaax badeedku uu soo abaarayna birtii uu isaga waabiyay si uu isu badbaadiyo ka bacdi gadaal uu soo cararay inta uu biyaha ku guda jirayna wuxuu ku xirnaa GoPro kamarada loo yaqaano oo waxa meesha ka dhacay uu duubay laakiin nasiib wanaag kor oo ka soo baxay una badbaaday Mark wuxuu ka mid ahaa dadka ciyaaraha barafka maalmaha ka mid ah asaga oo iskala baashaalay sidii caadadu ahayd asxaabtiisa ayuu wuxuu ka war helay baraf oo madax ooga soo dhacay Mark kontaroolkii ayaa ka lumay wuxuuna hoos uga dhacay buurtii ilaa uu ka gaaro nasiib wanaag meel u qabsada wuxuuna Janus u helay habeenkii inuu familkiisa soo nabad qabo ku nool